السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولكي أدبان السلام يا سعادة يدين تحيبا سولو ودان لا يحي سلام كبعدي وحندونا يا إنان حق نبع يدين سيو أرنتا عينابا سيكو صوب العبانتي يسيدي اللوغة الشقيي يسيدي أي كتبي قولها iyo sida ay ku baaqatay intaba waxaan jecelahay inaan warka idin siiyo anigu xogiyay golahaanahay wax kasto madaxtooyada ka soo baxa cid ugu horeysa ay u timaado xafiiskayga yimaada madaxweynuhu safarkii halka ku tagay Caynaba waa kii ballan qaaday inuu degmada B ka dhigayo ballanqaadkaas uu Caynaba ku soo sameeyay markuu soo noqday hawshaas wasiir hinda iyo xildhibaanada wasiirada wasiirka maxaan ku ilaahdayay dastuurka Maxamed Aadan ina kaahin ina gaafaadhi intuu way ka shaqeeyeen inuu madaxweynuhu warqadii uu ballan qaaday inuu soo sameeyo warqadda markuu ugu horeysa xeerar wuxuu procedure bay maraan procedure kay maraan waxa weeyaan marka degmo B laga dhigayo ama la hoos loo dhigayo waxa qiimeyn baa lagu soo sameeyaa meesha la tagaa guddi baa loo diraa farsamo oo soo qiimaysa baaxadeeda dadka ku nool inta bayadoo Caynaba la og yahay ayaa wasiirka arrimaha guduhu wuxuu soo qoray warqadii qiimeynta Maxamed Kaahin wuxuu soo gudbiyay madaxweynuhuna wuxuu soo qoray golaha wakiilada وحير مدحوينا لا يرحلا مر هذي كسب بحذي حير كان مدحوينا ومدح قريه وسير كريمه جوده سوقري waxay la kulantay xeerkan markay la kulantay doodii xeerka waxa la soo geliyay degmooyin badan baa la yiri biyaha laga dhigo hadalka ay la fahma arabkii baa soo jeediyay in degmadoodii balax gudbo si laga dhigo ciida gala soo jeediyay inagoo garada reer garada baa soo jeediyay kuwa lama soo qiimay wasiirka arrimaha guduhuna ma soo gudbin madaxweynuhuna ma soo gudbine waxay noqotay dood ka dhalatay golaha dhexdiisa arintii buuq ayay ku keentay shirgudoonkii markii la sameeyay shirgudoonku markii habar jeclo u tagtay horta mid ogaada habar jeclo intaa xilka haysa ama Cumar dheh ama Sambuur dheh ama labadan isbooxbooxay Maxamed iyo Muuse dheh horta nimankaas waa team isku xidhan weeye Maxamed iyo Muuse meesha ma yaalo yaan laga dhigin Caynaba magaalo habar jeclo Caynaba waa la og yahay waxa ay tahay cidiyaan lagu xagxagan halka markii mareysay intaas oo biyo la soo dhinac dhigay ayaa shirgudoonku waxay yiraahdeen Caynaba kaliya dhigno xeerkan ansixi ma iyo waxaan dadka codsanaynaa maalinta xeerkaas oo ansaxo inaanu degmadii soo dhigno oo warqadii soo dhigno horta Caynaba warqadii golaha wakiilada ay taala madaxweynihiina way soo dhaaftay madaxweynuhuna wax beena warqadan ma ahayn waa warqad sharciya waa warqadaha sidoo wasiirada u magacaabo sidoo xeerarka u soo saxay official u tahay kama noqon karo hadda saacadaan joogno golaha wakiilada ay taala kama noqon karo ma baabiin karo yaan been loo qaadanin arrimahan ka hadlayo aanu xogiyay golahan hay intaas oo sharci mar hadduu soo saxeexo saxiixba ku ilaa wadinka arkayde oo been lidii sheegmayo saxiix madaxweynaha ku yaala qiimeyntii golaha wasiirada ku taala wasiirka arrimaha gudaha ku taala waa arinta habar jeclo haday tahay xildhibaan iyo haday tahay waxyaalo kale oo lagu kala duwanaan kara way jirtaa laakiin degmada Caynaba in biyo ay noqoto war habar jeclo yaa isku toomi cid maanta maxaan ku dhahdayay diidani ma jirto caadifadana laga ilaaliyo waa la dhigayaa xildhibaanadan arinta diiday waxa isku fahmi waayeen war ma ilmaade reyaal shirgudoonku wuxuu walma reyaal inta soo biya meesha la soo dhigay biidina ha ku khaldin biidina waa sharci tan waa sharci Caynaba waa sharci laakiin kuwan kale waa iska soo jeedin mudanayaasha
وارسينا هكو خالدين كون كلا وحي بيلا سوت شديه وكتجيا وحي بيلا سوت شديه إحنا بنقول سوت شديه وكتجيا لكن والقدنا وحق له قليا إن ترى هذا نو صدقة عينه هو بي نيكا كل هذا ما هو بي كل يوم حوارتن أصلا أنت أقولها وكيل هذا وارتن وأنا لا صدقة موسى يا محمد سكوه استانا متشران هذا الكيجا هوست كحريقة ما تشرتو موسى يا محمد سكوه هيا كصوت صحيح صدقة وينك هندي يا ككشق يواه هندي يدي محن كل هذا محمد آذنيو محن كل هذا وسير نيك الصنبوريو ده ما أنت تقول شقيا مركا وهرئينا نسوق خبصهن عينبات بي لودي ده عينبات بي لقى هذا هراء الله سبحانه يا هوش هذا مدحوينه هو مدحوينه هنا دوران لي سيدي بان ولا شقينا سيدي بي حبرت علي حبر والقوة الشقيان دبات ما تفتو دباتها ورنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.